السلام عليكم أصحابتي وحنا أصحابتي وصوب برتول دواد ولا لا وكم تنتين لما أنت نقولي يقولين ما أدري إلا أنت نبار واي يلبت حوجا وغير ذلك كلام سكراب هاي صاران لما أنت حوجا مرة غير كنا وحيال عندهم سكسيني أرك والله واسك حوجا واسك قيروضا يعني وحنا قيروضا نينا نمك دير قبله أيرك أو هذا صدح سنة يبرتل سبحان الله hooyooyinka waxaan leeyahay ciyaalkaaga qofkaad aabbo uga dhigaysa fiiri nin balwali noloshaydi nin balwad ma shukaansan nin balwad waaba kala laboodan markaan arko maxaa yeelay nin asaga tiisii gabay aa mas-uuliyad aad saaranaysaa intuu qayilay ayuu gabadhii oo adeerka waale waa ninkaas maskaxdiisa iyo maankiisa aysan joogino oo wuxuu rabo ku sameeyay asay naftana ka dhacdo leela dhageysta wax yar ka hor dhici maayo Allah wax laga qeyrado 28 sano jir ah oo kufsi u geystay gacalo Ismaaciil Cabdullaahi daadeeduna ahay 3 sano jir ayna dhashay xaaskiisa una dhimatay kufsiga ee tacadiga uu geystay ayaa maanta qisaas dil ah lagu fuliyay kadib markii cadaatay inuu falka foosho xun u geystay gacalo Ismaaciil Cabdullaahi xukunkan ayaa ka dhacay maktabada magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo la raacayay shariicada Islaamka waxaana si wada jir ah uga soo qayb galay odayaasha labada dhinac maamulka magaalada Dooble iyo culimada deegaanka si kastaba markii dhinac kasta la eegay ayay culimadu cadeeyeen in ay shariicada Islaamka qabto in qisaas dil lagu fuliyo marxuum Xuseen Aadan Cali wareen waxa meesha ka hadlay culimada maadaama la raacayay shariicada Islaamka wax la yiraahdo iqraarku waa qofkii dambigan lagu soo xiray ee dambigan loo soo qabtay inuu iqraariyo oo uu dhaho ana arrintii sameeyay sababku dhaho waxa looga baahan qodobka labaad ee wax lagu xukumo waxa waa shahaado in la helo markhaati in la helo oo ay qiraar dad aan asaga ahayn ay qiraar ay yiraahdaan annaga markhaati ahayn goobjoog ahayn ninkan markuu falkaas sameeyay uu sameeyay oo markhaati loo helo oo shuruudaha ay oogsato taasna lagu xukumaa qodobka saddexaad oo anaga qodobkan aan iskanay waxa weeye in la helo qaraa'in la helo wax muuqani karo oo markii labada kale la waayo la dhihi karo barnaamijkan ninkan sameeyay la dhihi karo oo qaraa'in ah oo tusayso inuu ninkan wax sameeyay qaraa'intii baa marka la helay markii qaraa'intii la soo ururiyay qaraa'intii waxay cadeysay falka xuna meesha ka dhacay inuu Xuseen Aadan Cali sameeyay kuna sameeyay gabar yar oo rabiibadiisa ah oo zawjadiisa ay dhashay ama xaaskiisa ay dhashay sanadkeena 3 sano iyo bar yahay gabadhiina dhimatay saake marka Xuseen markii la baaray culimada ay fiiriyeen waxa ku soo baxay dil baa soo baxay markuu Xuseen fiidsiga dhamaaday guriga kaligiis ayaa looga tagay iyo ilmaha wax kale oo la joogay ma jirin wuxuu dhahay halka ayaan ku qaylinayay ilmaheygana aan ku ilaalinay midda shanaad gabadha yar markii ay la soo qaaday ee gabadha dariska ay soo qaaday iyadoo xanuunsanaysa gabadhii dariska waxay tiri maxaa ku daaray aaba Xuseen ayaa saantii yeelay ay tiraahday gabadha dhinaca kale waxaa dhankooda goobta ka hadlay odayaasha labada dhinac iyagoo sheegay inay ku qanacsan yihiin shariicada Islaamka wixii sharciga Islaamka uu soo saaray waxaan ka qabno madaxa waxay anaga sharci ku dhaqaaqay waxaasna ilaahay waa ku wax runna ilaahay kama baryin waxa hadda la sheegayo wax la yaab ay nagu noqotay wixii sharciga soo saaray waxba kama qabno haddaan nahay odayaasha Cabdiqani Sheekh Axmed baa la yidhahaa haddaan nahay odayaashii dhinaca gabadha ka socday ee saaka dhibanayaasha ahaa waan ku qanacsannahay waxay shareecadu xoogaysay iyo culimada raali baan ka nahay gabagabadii maamulka magaalada Dooble oo kiiskan gacanta ku hayay ayaa dhankooda ka hadlay hadalkoodina waxaa ka mid ah sida tan 3 sano iyo bar jirto ayaa mid 28 sano jiro oo hooyadeeda qabo yaa ugu isticmaalay si aan axawalaane gabadheeda ayna kiiska noocaasi ay u geeriyootay iyadoo saaka aan ku xabaalnay
لا إله إلا أنت يا رب العالمين لا إله إلا أنت يا رب العالمين ورجعني قاركود wuu doorsoomay gabar oo aabbo u yahay xaal tahay noloshiisa inta kale haddii hooyad kalete xarig xataa muu qabanayo xarig waxa la yidhaha xataa muu qabanayo waxa ka qaldanaan bogaro xarig xataa gabar ad hooyad aad guursatay xarig mukuu qabanayo madaxunkeeda aabaheed oo kalaad noqotay aabbo xuseen asaan ii galay subxaan allah subxaan allah subxaan allah war ilaahay ragga xaaraanay ka dhargeen umar raggeeni qaarkood waa doorsoomeen raggeena ma wada ahan laakiin qaarkood waa doorsoomeen ilaahay oo soo hanuuni oo xaqa tusi gabadhaas yartaana waalidkeeda ilaahu samar iyo iimaanka sii asagana waa tiirkaaba la geeyo waaba la xukumaba alxamdulilah xuduuda ilaahay haddii qolo walba saas u oogyahay dadku waa nafisi lahaayeen qof ku xadgudubtoo lama arkay maxaa yeelay xuduuda ilaahay ayuu dhaafay ilaahay xuduudiisana qofka baqayran xaqan qof ku disho in la dilo ayo loo dilo oo xuduuda laga fuliyo ayaa ilaahay maxay ahayd oo amray marka guuleystan leeyahay qoomkan waa qoom lagu daysado mudan Soomaali qaarkood ku daysata mudan qof dhanaa baqayran xaqan loo dila markaasaa qofkii dhalay aadiya been laga kala qaadana oo xaataay waxaan 20 halood dhameeyna la siisiin asal hay mac salaamadeedii waa bixina inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un xuduuda ilaahay saas in loo fuliyo waa wax fiican ilaahay wuxuu amrayna xuduuda fulino insha Allah qoomkan waxaan la guuliyo gobonimo idin rajeeyay guuleysta dhamaanteen insha Allah ilaahay waxaan uga bariyay in ilaahay xaq ay dadka kale Soomaaliyeed saas oo kale xaq uga fajiya insha Allah guul iyo gobonimo idin leeyahay insha Allah dadkan oo culimada iyo ka odayaasha kamid ah oo xuduuda ilaahay saan raal ugu wada ma sha Allah la guuleysta asxaabta guul iyo gobonimo idin rajeeyay idin kana dhamaanteen waa qeyrooda xoogaaye raali noqdo insha Allah